hooyadu waa mashiinka soo saara noolaha ugu karaamada badan khalqiga Ilaahay uumay kaasoo ah bani'aadamka waana sababta daryeelkeeda iyo kan ilmaheeduba mudnaanta loo siiyo. waqtigan waa laga soo gudbay hababkii dhaqanka ee guriga dhexdiisa looga umulin jiray dumarka waxaana soo baxay qaabab cilmiyeysan si aanay u umul aroorin ama aan ilmaha noloshiisu halis u galin waqtiga foosha. sanad waliba 5 May waxa guud ahaan dunida laga xusaa maalinta umulisooyinka iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka. ururka kalkaaliyeyaasha iyo umulisooyinka Somaliland ee loo yaqaano Somaliland Nursing and Midwifery Association oo la aasaasay sanadkii 2004 ayaa ahmiyadda ugu weyn loo yagleelay ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda kalkaaliyeyaasha caafimaadka iyo sidoo kale umulisooyinka guud ahaan Somaliland. waxa la aasaasay 2004 baa la aasaasay magaalada Hargeysa lagu aasaasay haddana nahay Somaliland Nurses and Midwifery Association waxaanu metelna marka ugu horeysa nurseska iyo midwiveska Somaliland guud ahaan annagoo doonayna inaan horumarino tacliinta ama educationka umulisooyinka iyo nurseska. maadaama oo dunidu horumar ku tallaabsanayso cilmiguna isu bedelayo sida waqtiga ururka kalkaaliyeyaasha iyo umulisooyinku waxa uu tababaro ku jaango'an hadba wixii ku soo kordha aqoonta khusaysa shaqadooda ku taageera shaqaalaha gobolada iyagoo u qabanaya tababaro kor loogu qaadayo xirfadooda. markii ugu horeysay Somaliland Nursing and Midwifery Association waxay sameysay assessment wax la yiraahdo ama qiimeyn lagu qiimeynayo intee in leeg bay shaqaalaha caafimaadku u baahan yihiin xirfadooda kor loogu qaado. sanadii ay sameysay qiimeynta waxay 2007 waxaa la ogaaday heerka ay taagan yihiin nurseska iyo umulisooyinka Somaliland. sidoo kale markaas ay ahayd markii la bilaabay in la sameeyo barnaamijka noocan oo kala laga soo bilaabo 2007 ilaa sanadkan lagu jiray 2018 waxay sameeyeen Somaliland Nursing and Midwifery Association ururka nurseska iyo umulisooyinka Somaliland inay shaqaalaha u sameeyaan tababaro joogto ah oo sanadkiiba la sameynayo gobol walba laga sameynayo shaqaalahooda la tababarayo maadaama oo loo baahan yahay in cilmigii la joogteeyo oo maalin walba ay soo baxayaan cilmi cusub oo la baranayo adduumaadka waxa weeyaan in la sugo oo ay shaqaalaheena caafimaadku ay joogteeyaan xirfadoodii si ay uga adeegi karaan bukaanka sidoo kalena xirfadooda kor ugu qaadi karaan. keliya dadaalka ururku kuma koobna yaraynta umularoorka iyo dhimashada ubadka balse waxa uu xilis ka saaray sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta akaademiga ah ee umulisooyinka iyadoo hore loo heli jiray waxbarasho aan dhaafsiisnayn darajada dibloomada balse iminka wadanka gudihiisa si fudud loogu diyaarin karo shahaadooyinka digriiga iyo masterka oo dhammaantooda culumta kalkaalinimada iyo umulinta. 6 gobol ee Somaliland ka koobantay mid walba waxaan ku leenahay xafiis chapters baan leeyahay meel walba waxa noo fadhiya qof baa noo fadhiya iyo nurseska iyo iskuulada ku dhisan iyo dadka jooga oo aan wada soconno oo aan ka soconno waxyaabahan ku sheegaynaa ama cilmigooda aan badino ama wax ka sameeyno aan ka wadno. markii aanu sameeynay missionka iyo visionka waxaan hadana iyagana aan ka barbar sameeynay SLM objectiveskeedii yaanu sameeynay iyadoo objectiveskaasi ay ahayd in hore loo mariyo developmentka ama dhismaha nurseska iyo midwiferska. markii aanu bilownay waxay dadku heli jireen only diploma wax la yiraahdo oo postgraduate diploma buu ahaan jiray berigii hore waxaan ku kordhinay inaanu sameeyno degree on upgrade inu sameeyno dadkii inaanu hadana ilaa upgrade intaan dhaafno master ba maanta aanu marayno oo midwiferska ay marayaan master iyo 3 qolo nooga soo baxday waqtigan maanta. iyadoo loo turaayo dadka danyarta iyo kuwa aan awood u lahayn inay soo gaaraan xanaanooyinka ama ku nool goobaha ka fog magaalooyinka ayaa sanadkii tagay waxa ururku gaarsiiyay adeega caafimaad ee taranka isku dhafan waxaana ka faa'iideystay 1900 oo isugu jira hooyooyin iyo ubad
da-doodu ka yar tahay 5 sano. waxaa ka mid ahaa iyada oo la gaadhay oo la qabtay adeegyadan outreach-ka la yidhaahdo kaasoo ah in la gaadhsiiyo adeega caafimaadka taranka ee isku dhafan bulshada iyadoo loogu talagalay bulshada aan soo gaari karin xanaanooyinka ama goobaha caafimaadka iyadoo loogu talagalay bulshada danyarta ah ee goobaha iman karahayn iyadoo loogu talagalay dadka inta nugeelka ah ee dumarka dhaqamaatiga iyo caruurta 5 sano ka yar ayuu ahaa bayskiisu in la siiyo waxa laga qabtay 12 xanaano ee Maroodijeex gaar ahaan Hargeysa. sidoo kale ururku waxa uu tababar siiyay sanadihii tagay qaar ka mid ah shaqaalaha waararka qaliinka ee dhakhtarada ku yaala magaalada Hargeysa si looga maarmo ajaanibtii hore wadanka dibadiisa looga keeni jiray. tababarkii ugu horeeyay ee abad laga qabto Somaliland ee ku saabsan tababar la siiyo shaqaalaha qaybta qaliinka ee tiyaatarada Somaliland ee qaybta khaasatan nursingka oo ay Somaliland Nursing Midwifery Association ku hirgelisay fulintiisii oo isku dubaridkiisana iyadu lahayd waxa uu dhacay 2013kii waxaana laga bilaabay magaalada Hargeysa oo ku koobnaa guud ahaan 24 arday bay ahaayeen muddo sanad ay baranayeen tababarkaasina wuxuu ka socday maxadka caafimaadka ee Hargeysa Institute of Health Science iyadoo fulintiisa iyo isku dubaridkiisa uu lahaa ururka nursingka xagga fankana uu ka caawinaysa marka Fara Foundation oo ay hay'ad ama NGO bayskiisu yahay Ingiriiska muddada sanadka ah ee ay training ka baranayeen oo ku beegnay 2013 ilaa 2014 24 arday oo ka yimid guud ahaan magaalada Hargeysa ama gobol ahaan waxay ahaayeen lodkii ugu horeeyay ee abad Somaliland laga qabto intii ay dib u soo noqotay xornimadeeda 1991kii. dhowr week baa tababarna loo sameeyay kadibna waxaan u baxnay goboladii dalka oo dhan 6 gobol ee dalka waxaan ka soo shaqeynay 6 gobol 6 isbitaal oo waaweyn isbitaalada dawladda ah waxaan tababar u fidinay dad badan oo shaqaalaha OT-ga ay isugu jireen auxiliary nurse iyo dadka assistant-ka ee isbitaalka jooga shaqaalihii waxay qaateen tababar aad u qiimo badan oo soconayay muddo sanada gobol kasta waxaanu joogaynay bil iyo 40 cisho waxaanu tababarka u wadnay shaqaalaha inagoo la joognay labada gelinba tababarkana wadnay xilliga qaliinka lagu jirana aanu caawinaynay tababarka ugu dhex sameeynay qaliinka gudihiisa teaching badanna aanu sameeynay xilliga lagu guda jiray qaliinada iyo marka laga soo baxo qaliinadaba run ahaantii wuxuu ahaa tababar aad u qiimo badan dad fara badan ay ka faa'iideysteen beeshino badanna care fiican ay ku heleen. ururku waxa uu sidoo kale xiriir dhow la leeyahay ururo kale oo ka shaqeeya arrimaha haweenka waxaana uu inta badan kala taliyaa dhanka tacadiyada dumarka loo geysto. Baahikob Center waxaanu ka shaqeynaa oo aanu kala shaqeynaa Somaliland Nursing and Midwifery Association gender based violence ka ama muxuu ahayd tacadiyada ka dhanka ah lamaanayaasha xiriir wanaagsan iyo wada shaqeyn wanaagsan baanu leenahay waxay naga caawiyaan xagga caafimaadka nursesku meelay joogaanba haddii dhakhtarka weyn joogaan iyo haddii ay joogaan muxuu ahayday Somaliland Nursing and Midwifery Association wixii caafimaadka ah ee ku saabsan tacadiyada ka dhanka ah muxuu ahayday lamaanaha ayaanu kala tashanaa wixii aanu uga baahano caawimo ama consultancy waxa la yiraahdo wayna siiyaan.
haddaba sidee ayaa ururka loogu soo biiri karaa? Waa maxayse shuruudaha ku xidhan ka mid noqoshada ururkani? Faa'iidada xubinnimada ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Somaliland waxaa muhiim ah in uu qofku ku baraarugsanaado shuruudaha ku xidhaya ururkiisa, kaasoo uu qofku si dhib yar uga mid noqon karo haddii uu buuxiyo shuruudaha. Tusaale ahaan, in aad ka mid noqoto xubin firfircoon oo ururku waxay kuu sahlaysaa inaad la xidhiidhid shaqaalaha kale xirfadda ah. Waxbarasho online ah oo aad gaar u heshaa had iyo jeer waxay kuu sahlaysaa ama ururku uu ku siinayaa website kuu gaar ah oo aad ka helaysid xog ku saabsan fariimaha hoggaanka ururka, fursadaha soo baxa ee muhiimka ah. Sidoo kale waxaad kala socon doontaa waxyaabaha update-ka ku ah bogga Somaliland Nurse and Midwifery Association. Sidoo kale waxbarasho ayaad xaq u leedahay inaad heshid. Waxaa jira ururo xirfadlayaal oo alaaba had iyo jeer siiya ururka xirfadlayaasha fursado waxbarasho oo kor loogu qaadayo aqoontooda iyo seminaaro, taasoo uu qofku xaq u leeyahay hadhow toole inuu isagu ka mid noqdo inuu la siiyo waxyaabaha waxbarashada, inuu ka qayb galo shirarka muhiimka ah ee ururku had iyo jeer qabsanayo, inuu ka mid noqdo xubnaha ururku had iyo jeer uu doorto ee ku soo baxa hoggaanka. Had iyo jeer xubin kasta ururka ka mid noqota waxay bilaash u helaysaa nuqul ka mid ah nuqulada uu had iyo jeer soo saaro ururku, kaasoo xambaarsan xogta ku saabsan ururka ee sanadlaha ah. Ururka SNM waxa uu fursad siinayaa xirfadlayaasha ka diiwaan gashan ururka, taasoo uu qofku ku weydaarsan karo kuna falaqayn karo caqabadaha ka iman kara ee ka soo wajahaya xirfadiisa. Haddii aad ka diiwaan gashan tahay ururka oo caqabad aad la kulantay, waxaad xaq u leedahay inuu ururku ku difaaco kuna garab istaago. Haddii aad tahay arday ka diiwaan gashan ururka, waxaad xaq u leedahay inaad heshid fursad waxbarasho oo kor u qaadaysa xirfadaadii. Ururku waxa uu had iyo jeer ku yagleelayaa xidhiidho iyo ilo cusub oo aad ka hesho fikrado iyo talo kuu saamaxaysa in aad si wacan u maamusho waqtigaaga iyo waxbarashadaada. Haddii aad ururka xubin ka noqoto, waxaa lagu siinayaa aqoonsi ay ku xardhan yahay sawirkaaga, magacaaga iyo xirfadaada. Xubinnimadu waxa ay fursad kuu siinaysaa ama adiga ha ahaato ama aniga ha ahaado, dhammaanteen waxay fursad inoo siinaysaa in aynu si wadajir ah ugu dabaaldegno maalmaha inoo gaarka ah, loona aqoonsado qofka shaqada wacan qabtay, si dhiirigelin ay ugu noqoto oo ay shaqadiisa kor ugu sii qaado xaggiisii waxbarasho iyo xaggiisii dabaaldegba. Sidoo kale waa in la muujiyaa doorkii uu ku lahaa bulshadiisa uu intaasoo dhan u soo shaqeeyay xaggii kaabida caafimaadka. ururku waqtigan kuma koobna caasimadda oo keliya, balse waxa uu xarumo ku leeyahay gobolada dalka. Waxqabadyo badanna ayuu ka fuliyaa gobolada dalka. magacay waa Seenab Cali Saalax, anigoo ku hadlaya magaca ururka umulisooyinka iyo nurseska ee gobolka Togdheer. waxa farxadii ah maanta inaan ka qayb galo xafladan quruxda badan ee la soo agaasimay ee loogu dabaaldegayo maalinta loo qoondeeyay ama loo asteeyay maalinta midwife-ta adduunka ama maalinta umulisooyinka caalamka oo ku beegan 5 May. inaan u dabaaldego oo aan farxadan la qaato aad baan ugu faraxsanahay. waxaan rabaa inaan hambalyo u diro dhammaan umulisooyinka caalamka dacaladiisa jooga, meel kastay joogaan. waxaan leeyahay Happy Midwifery Day ayaan leeyahay. ku ciida caafimaadsan jiroo jooga ayaan leeyahay. maalintaas waa maalin qaali ah. waxa maalinta loogu asteeyay inay noqoto loo sameeyo motivation loo sameeyo oo looga abaalkoodii dib loogu celiyo wax ayaa maalinta loo asteeyay markii la ogaaday midwife-to ama umulisooyinku inay yihiin lafdhabarta bulshada u adeegta iyo kuwa badbaadiya hooyada iyo dhalaanka. aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta mar labaad iyo mar saddexaadba aan ka qayb galo xafladan. waxaan idin leeyahay hambalyo. waxaan hambalyada u dirayaa
dhammaan umulisooyinka meel kastay joogaan waxaan si gaara u hambalyeynayaa umulisooyinka Somaliland gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer ayaan hambalyo aad u sii diraya waxaan kaloo aan rabaa inaan uga gudbo iyadana inay jirto 6 ilaa 12 bisha May inay noqonayso ay tahay maalinta nurseska maalmaha nurseska iyaga week baa loo dabaaldegaa waayo way ka guda balaaran yihiin nurseska umulisooyinka iyagana waxaan leeyahay dhammaan nurseska adduunka jooga dacaladiisa iyo kuwa Somaliland iyo kuwa gobolka Togdheerba iyagana waxaan leeyahay happy nurses week ayaan leeyahay hambalyaan u diraya dhamaantood iyo duco inta haddii aan ka gudbo anigoo ku hadlaya magaca ururka nurseska iyo umulisooyinka ama Somaliland Midwifery and Nurse Association oo ku hadlaya waxaanu qabanaa oo aanu ka qayb qaadanaa oo aanu ku howlanahay inaanu gacan ka geysano waxqabadka iyo horumarinta iyo daryeelida hooyada iyo dhalaanka waxaanu sameynaa tababaro ayaanu sameynaa tababaradaas oo aqoonta umulisooyinka iyo nurseska kor loogu qaadayo waxaanu kaloo sameynaa tababaro khaas ah oo ku saabsan badbaadada hooyada si markaa kor loogu qaado caafimaadka hooyada iyo dhalaanka hadda waxaanu kaloo qaybinaa dawooyin umul gargaar oo ah dawo loo isticmaalo dhiig joojinta si looga badbaadiyo hooyadu inay dhiig baxdo waxaanu qaybinaa dawooyinkaas aanu gaarsiinaa cusbitaalada Somaliland oo dhan gaar ahaan haddaan ka hadlo gobolka Togdheer waxaanu soo gaarsiinaa haddaan ururkaanahay misbarstoosha iyo ayaan soo gaarsiinaa misbarstool waxaanu u qaybinaa cusbitaalada lagu dhalo oo dhan waxaanu kaloo aanu u qaybinaa xanaanooyinka iyaguna bixiya shaqada ama serviceka umulta iyo dhalmada ayaanu iyagana u qaybinaa gobolka Togdheer waxa marka intii la qaybiyay dawooyinkaas iyo ma garanaysaa dhiig joojinta misbarstoosha waxa laga yareeyay lambarkii u dhiman jiray dhiig baxa ayaa la yareeyay waan ku faraxsanahay marka inaynu shaqooyinkaas sii wadno maadaama aynu nahay umulisooyinkii iyo nurseski iyo ku hawlanayaashii minhadayaashii caafimaadka haddaynu nahay waxaan idinku baraarujinayaa inaynu kor qaadno xirfadeena oo aynu ugu adeegno bulshadeena idinkoo awalba ku hawlan oo aan waxba idinka dhul oolin oo habeen iyo maalin u gudayo u guura gararcaynaya si aad ugu adeegi lahaydeen bulshadiina waxaan ku hanweynahay maantana inaan idinku sii dhiirigeliyo maadaama aan ka mid ahay madaxdiinii aadna waan idinku hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaadba bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdinaasir maxamed nuur waan ahay academic teamka dugsiga caafimaadka maxadka caafimaadka magaalada Burco waxaan runtii doonayaa inaan ka hadlo maanta anigoo sheegi doono bal xoogaa taariikho iskuulku soo maray uu leeyahay waxaan ka hadli doonaa guluubadii ama loodkii ka baxay nursery iyo midwifery ah oo tirada guud aan sheegi doono aan hoos sii galahayn ama sii faahfaahinay guluubada nursery ka baxay waxay waa 7 guluub lambarkooduna wuxuu leeyahay 293 guluubada ka baxay umulisooyinka wax weeyaan waa 4 guluub lambarkooduna wuxuu leeyahay 112 qolada labo basic oo iyagana ay bartaan hablaha waxa ka baxay 26 hablood waxa iyaguna jira lod bartay laboratory-ga oo tiradu orodkii horeeyay tiradu 17 isugu jira hablaya inama runtii waxaan aad iyo aad hambalyo ugu dirayaa maalinta umulisooyinka oo ku beegan 5 bisha May taasoo leenahay aad u hambalyeeyno haddaan nahay maxadka caafimaadka iyo cuntada sayniska magaalada Burco waxaanu inta badan isticmaalaa curriculum ama manhaj la raaco oo aanu isticmaalo ardayda waxaanu qaadanay dhowr curriculum baan isticmaalnaa ila Somaliland Nursing Diploma Curriculum Basic Midwifery Diploma Curriculum iyo BS Nursing Degree Curriculum iyo mid la yiraahdo Top Up Nursing Degree Curriculum inta waxa faahfaahsan karaso inta badan ka qayb qaatay nurses iyo midwifery ka qayb qaatay ururkaas inta badan ka qayb qaatay ururka la yiraahdo ururka nurse kalkaaliyaasha iyo midwifery ama umulisooyinka ayaa inta badan faahfaahsan karay aad iyo aad aan ugu hambalyeynaa inay hawsha iyada ka qayb qaateen runtii qaybtan midwifery-gana gacan saar weyn bay leeyihiin marka laga hadlayo qaybta midwifery oo ha noqoto iskuulada oo dhan waxay leeyihiin gacan saar weyn
markaa maadaama la joogo maalintii loo dabaaldegayey umulisooyinka waxaanu hambaliyo xooga u diraynaa dhammaan umulisooyinka somalilan iyo caalamkaba waxaan u diraynaa maadaama ay maalintoodu tahay aad iyo aad baan u hambaliynaynaa waxaan ka mid ahay macallimiinta iskuulkan joogta magacayguna waa Faadimo Maxamed Cawid maanta waxaa loo dabaaldegayaa dunida oo dhan looga dabaaldegayaa maalinta umulisada iyo maalinta neersiska oo isku daba xiga maalinta umulisada oo ah 5 bisha shanaad neersiskana looga dabaaldegayo 6 ilaa iyo 10 bisha horta marka hore waxaan hambaliyo u dirayaa dhammaanba umulisooyinka dunida oo dhan ku nool gaar ahaan kuwa Somaliland meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay hambaliyo ayaan aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya iskuulkan aynu joogno oo de warkiisa hore u heshay waxaanu soo saarnaa umulisooyin laba qaybood ah qayb basic ama qualified midwifery la yiraahdo iyo qayb la yiraahdo post basic midwifery oo ardadii markii hore baratay nurseska ay mar labaad ka faa'iideystaan inay umuliso noqdaan ururka Somaliland Nurse and Midwifery ayaa ah mid had iyo jeer gacan naga siiya xagga waxbarashada xagga manhajyada iyo xagga qaadista imtixaanka oo naga qayb qaata markasta group qalin jibinayo imtixaanka aanu ka qaadayno si uu imtixaanku u noqdo imtixaan national ah oo dabeedna qofka liisan lagu siiyo ayna marxaati uga noqdaan inuu yahay qofkaas qof qualified oo imtixaankiisina galay kuna gudbay oo marka lagu siiyo shahaadadiisii waxaanu qaadnaa marka ay ugu dambeysay imtixaanka la qaaday finalka ay qalin jibinayaan ardadu neersan iyo midwife waxaanu ka qaadnaa imtixaan la yiraahdo OSCE oo ah imtixaan si gaar ah looga qaado waxaanu bilownay sanadkii 2014 waxaa naga horeysay oo goor hore bilowday Boorame ama jaamacadda Amuud waxa isku xid noo sameeyay inaanu isku xidhano imtixaanka wada qaadno oo aanu iyagana la qaadno anagana la qaadno ururka Somaliland and Midwifery Association oo aad uga mahad celinayno arrinka intii ka dambeysay 2014 markasta group kasta qalin jibinaya waa laga qaadaa si loo hubiyo awoodooda cilmi xirfad iyo akhlaaqeedba wax badan maayo waxaan leeyahay dhammaanba waxaan u hambaliyaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba Somaliland Nurse and Midwifery mar labaadna waxaan u sii hambaliyaynayaa Somaliland Midwifery iyo nurse meel kastoo ay joogaan waliba 5 May waxaan aad ugu hambaliyaynayaa umulisooyinka Somaliland iyo kuwa dunida kale oo dhan iyo meel kastoo ay joogaan bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacaygu yahay Maxamed Jaac Ismaaciil waxaan ka mid ahay macallimiinta ka howlgasha Boa Institute of Health Science dooyinkii 8 sano u dambeysay ama 9 sano u dambeysay waxaan ka mid ahay dadka dhamaystay ama ka faa'iideystay manhajta uu sheegay agaasimaha macadku Naasir Maxamed Nuur hadday tahay top up nursing degree-ga iyo hadday tahay master program-ka ay soo ka soo shaqeeyeen soo abaabuleen ka howlgaleen ururka kalkaaliyayaasha iyo umulisooyinka Somaliland Nurse and Midwifery Association marka macallimiinta iskuulkan ka howlgasha badidoodu waxay ka faa'iideysteen program-kaas ay gundigiisa iyo xagidiisa bay lahaayeen ururku oo master reproductive health degree lagu qaadanayay marka dambana markii iyadoo ay facilitate gareynayeen labada jaamacadood ee kala Hargeysa University iyo jaamacadda Sweden ku taal Dalarna University 10 arday baan gobolka Togdheer kaga qayb qaadanay 10 ka arday baan kamid ahaa anigu oo aan ku jiray oo nasiib u helay inaan ka qayb qaato waxaan ka kororsanay aqoon badan iyo magaranaysaa xirfad fara badan iyo aqoon labadaba waan ka koobsanay ururku marka laga hadlayo Somaliland marka laga hadlayo ama ururada la midka ururada laba qaybood baa loo qaybo badan baa loo qaybiyaa oo professional organization weeyaan dad mihnadlayaal ay leeyihiin ururkani marka run ahaantii marka laga hadlayo xagga capacity building-ka dadka ururkan ku midaysan capacity building-ka iyo shaqooyinka uu qabto marka laga hadlayo aad iyo aad waajibaadka uga soo baxay baan oran karaa hadda aan kaani ahaan oo kale tiraba
ilaa 3 program oo ururkani soo bilaabay oo soo initiate gareeyay baan ka faa'iideystay oo ay kamid ahaayeen TOT trainingkii ugu horeeyay Somaliland nursing ba loo qabto oo 2009 lagu qabtay Hargeysa toba program 2013-2015 aan ka faa'iideysanay anagoo macallimiin fara badan ah oo 26 nurses ah master degree gaas oo dad awdal ka yimid dad Hargeysa maroojeex ka yimid iyo dad togdheer ka yimid ay ka faa'iideysteen oo kamid ahaa anigu marka maanta waxaan u xusaynaa programmiska iyo ma garanaysaa aqoon kororsiga faraha badan leh ururku na siiyeen noo facilitate gareeyay waxyaabahan u xusaynaa ku soo beegay waxa kamid ah maalinta umulisada caalamiga ee 5 May oo sanadkan la xusi doono si weyn loo xusi doono ayaan garanay inaan ku xusno ururkayagaas iyo ma garanaysaa roolka muhiimka ah oo ka qayb qaato haday tahay la shaqeynta institutionska health training institutionska waxa loo yaqaano ee goobaha caafimaad lagu tababaro mihnadayaasha caafimaadka iyo haday yihiin capacity building waxaan job training la dhaho oo ay u sii wadaan mihnadayaasha caafimaadka iyo haday yihiin long term training waqtiyada dhaadheer qaatay saaka master program kan ku qaadano kale KBS kan ku qaadano kale kuwa midwife ka oo ay si joogta u taageeraan oo u caawiyaan haday tahay capacity building kooga haday tahay long term training kooga marka aad iyo aad ban halkan mahadnaq ballaaran uga soo jeedinayaa Somaliland Nursing and Midwifery Association ka iyo hambaliyana waan u diraynaa dhammaan umulisooyinka caalamka iyo kuwa dalkayga Somaliland ba shaqada iyo hagar la'aanta ay hayaan hooyada iyo dhallaanka Somaliland aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan ahay maama keer muraayada guriga iyo macdantii uu qoys lahaa midii u miciinaysa midwife baa la yiraahdaa Save one life, you are hero. I'm proud to be a midwife. Congratulations all midwives on 5 May 2018. 5 May, happy midwifery day. Keep calm, I am a midwife. Shanta May xuskeedu maalin weeye caan oo marwo dhiig baxaysiyo midwife kaaba loo helo mid dabiibta loo helay midwife kaaba iyo mid dabiibta loo helay. Being midwife is 1% occupation, 99% dedication. I'm so proud to be midwife. Happy midwifery day. Waxaan ku faraxsanahay inaan ahay umuliso hormuud wadan yeesho iyo haweenku muraayad weeye inuu wadan horumariyo hilaadinta caafimaadka hooyaa laga sahamiyaaye inaan u horseedo guul ayuu hadafkaygu yahay miyaan holiyaa wax kale anoo hubin xaaladeeda miyaan harsadaaba maalin iyadoo aan haa ka hodhan miyaan ku ladaa hurdaba. As a midwife, I am embracing oxytocin a day and a night. I am proud to be a midwife. Save one life, you are a hero. I am happy to be midwife. I'm proud to be a midwife. Save 100 lives, we are nurses. Caring is a sense of the nurse. I'm sending congratulations all nurses in the world, especially Somaliland nurses. Nurses are the heart of the health care. I'm so proud to be a nurse. I'm saying just congratulations all the nurses all over the world, especially Somaliland and all over the world. Nurse is not what you do, it's what you are. I'm proud to be a nurse. Congratulations the day of the midwife and nurse. I'm a nurse. I'm to be proud of a nurse. We save lives. Thank you. magacaygu waa Xafsa Cali Yuusuf ardayad dhigata Sool College of Health Science gobolka Sool khaasatan dhigata midwifery dhigata khaasatan group D dhigata waxaan maranaa sanadkii koowaad waxaan marano semesterkii koowaad bilihii u horeeyay oo bishii saddexaad aan mar ardayda maxaan ku sheegay magaalada Laascaanood laga qoray oo ka faa'iideysanaya fursadaas oo hay'adu ugu deeqday baanahay marka waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad macallimiintayda mustaqbalka anigu marka hore ma ahayn qof fikrad caafimaad iguma jirin caafimaad barana isma lahayn in aqoon kale iska barto laakiin markii aan ogaaday hay'ada UNFB oo bixinaysa maxaan ku sheegay deeq caafimaad
deeq waxbarasho oo ka bixinaysa gobolka Sool si ay dadkooda maxaan ku sheegay ay u badbaadiyaan baan maxaan ku sheegay ku soo biiray markaas ayaan macallimiinteeda ka codsaday si ay igu soo daraan maanta waxaanu sameynaa practical inagoo sameynaa ardayda sanadka koobaad ku jirta khaasatan semester 2 ardayda ku jirta ay laakiin ka faa'iideysanayaan ardayda semester 1 ku jirta ee UNFPA ay fangarayso isla markaa waxaanu maanta qabananaa procedure-ka practical-ka aynu sameynaa waxa weeye newborn care ama daryeelka la siinayo ilmaha yar marka uu dhasho waayahay waxaanu u baahanahay ilmuhu marka uu dhalanayo uu noo dhasho in alaabta qalabkeenu ama equipment-geenu uu diyaar inoo ahaado waxaynu u baahanahay gloveski waxaynu u baahanahay amble bagi waxaynu u baahanahay stethoscope-ki waxaynu u baahanahay section-ki waxaynu u baahanahay tuwaaladii iyo inaynu maxay goobtaba deegaanka aynu diyaarsano inta ka bacdi ilmaha yar markuu inoo dhasho ilmaha yar markuu inoo dhasho waxaynu xidhanaa daaqadaha si aynu temperature-kiisa u saxno oo aynu temperature ku filan waan uga dhigno deegaanka oo ilmaha yar ama environment-ga oo ilmaha yar inoo imanayo waxaynu xidhanaa daaqadaha waxaynu iska diminanaa marwaxadaha after that waxaynu sameynanaa inaynu ilmihii yaraa u nimaadno ilmaha yar isla marka uu saa inoogu dhasho horta feerasti ay hooyada ilmihi yaraa saa uga soo saarno waan soo farxalanayaa sorry markaan soo farxasho waxaan isticmaalayaa gloveski waayahay ilmaha yar baynu u imananaa ilmaha yar markuu saa u dhasho isla markiiba waxaynu eeganaa horta ilmaha yar physical ahaan waxaynu saa u eeganaa ilmaha yar horta feerasti upgrade score-kiisa ay ugu horeyso appearance ama muuqaal kalarkiisa markaynu eegano waxaynu eeganaa ilmaha yar inuu yahay skinkiisu bullish ama inuu blue yahay oo oxygen-tiisu yar tahay iyo in kale waxaynu eeganaa activity-giisa ilmaha yar inuu dhaqdhaqaaqayo markaynu halkan taabno si uu uga jawaab bixinayo muruqyadiisan inay caadi wada yihiin normally waayahay waxaan eeganaa ilmaha yar nagoo saa u qabanana dhabarkiisa examinationna u sameynana wax spinal fluidska inay jiraan ama wax abnormal waayahay markaynu wada eegno waxaynu aragnay ilmaha yari inuu caadi inoo yahay ama normal inoo yahay after that waxaynu sameynanaa waxaynu eeganaa balse inuu ilmaha yar markaynu saa niraahno uu dhaqdhaqaajinayo inuu wax cabi karo iyo in kale intaa kadib waxaynu sameynanaa haddaba ilmihi yara normal wuxuu dhan inoo noqday waxaan sameynanaa ilmaha yar waan qalajinanaa inagoo si jirkiisa oo dhan saa wada qalajinana markaan qalajino waxaan sameynanaa waan duubanaa ilmihi yaraa si aanu qabow inooga helin waayaha markaynu duubno ilmaha yar meesha aynu jiifinanaa waa inay noqoto meel nadiifa halkan waa general hospital department maternity ward weeyaan halkan waxa weeye waxaan ku cadeynaynaa inaan talaalkii inaanu qaadanay FGM-kii muxuu ahaa training FGM-ka kaas FGM-ka haade muxuu ahaa inaanu qaadanay kaasoo waxyaalo badan oo faa'iido aan ka helay annaguna aanu gudbinay bulshadii nooga imanaya dumarka dhalaya ee imanaya maternity-ga iyo goobo kasta oo caafimaadka ah inuu dhibaato fara badan leeyahay aan waxa aan laga digtoonaado oo aan laga joojiyo ummadda miyiga magaalada qaar baa yimaada miyiga nooga yimaada iyagana fariin baan firnaa inaan niraahno FGM-ku oo wax xun idinka iyo gabdhihiina waxyeelaya isgaarsiiya oo gabdhaha baadiyaha jooga in laga joojiyo dhibaato badan intaan uga sheekayno tababar oo aan qaadanay weeyaan muhiimsan rabna inaan ka hadalno maanta waxaa ka mid ah midwiferyga qaybta midwiferyga marka midwiferyga aan gacanta ku hayno ama umulisooyinka qaybta umulisooyinka aan gacanta ku hayno college-ka dhigata run ahaantii waxay qaataan maadooyin aada u fara badan maadooyinkaas oo ah isugu jira kuwa gacanta farsamo iyo kuwa classka ay ku qaataan isla markaa ardaygu markuu cusub yahay ee soo galo college-ka kriteeriyada lagu qaato waa kriteeriyada curriculum kasta ugu taala inuu yahay ardaygaasi dugsi sare ka soo baxay ama muxuu ahaayay aqoon dugsi sare lasman uu leeyahay isla markaana uu akhlaaqiyan iyo ka dhisan yahay muxuu ahaay qof mas'uuliyad qaadi kara xagga da'da iyo marka loo uu yahay
maadaama qofkan qof bini aadana noloshiisa badbaadinayo waxaa loo baahan maskaxda ka ahaado qof ka qaangaaray maadaama uu yahay la rabo hooyo iyo ilmaheeda inuu kala badbaadiyo inuu qof mas'uuliyadda qaadi karo inuu yahay inuu qaadi karayo mas'uuliyadda qofka bini'aadanka cadihiisa uu daweynayo ee kala jaajaadka muxuu ahaa ilaahay u sameeyey inuu yahay qof markaa qof ku miisaan culus oo magaranaysaa xaggii daryeelkiisii etikaal ahaan sumcaddii si kastaba wixii cudurre uu ku arko qofkaas inay hadhow ku noqdaan goobahoodii hawshaas sidii la rabay runtii noogu socotaa waxay hadda ku jiraan waxbarashadii semesterkii koowaad bay ku jiraan muxuu ahaa waxaa loo bilaabay January baa loo bilaabay December waxaa la sameynayay in iyaga la soo salagti gareeyo markaa si fiican bay hawshaas u socotaa dhiinkana waxaa ka midwiferyga gabayaanba dhiin uga college-ka marka la eego Hinda Saleebaan Jaamac oo qofka kaliya aan u dooranay inay dhiinka ahaato aqoonteedii leh muxuu ahaa digrigeedu wadata macallimiin kala jirto oo la mid ah iyada oo la shaqeeya laakiin gaar ahaan iyada kolada qof ma mas'uul qaadi lahaa iyada waxay mas'uuliyadda u xil saaray in ay ka soo bixi karayso kuna runtii halka practical haday tahay kula socota qof kasta beersan ula socota wuxuu qabanayo haday habeen tahay saddex shifti waan ku qoraablaha shiftiga aroortii oo mor shifti ah B shifti iyo C shifti saddexda waan ku qoraa goobaha ay tagaan intaaba qof walba gaar bay isu taagtaa waxay og tahay maxay qabteen sidee yihiin warbixintaan kala qaadanaa ilaa hadda waxaan israado waa khaldan ama waxaan israado waa caqabad oo naga haysta galaaska ma jirto waxyaalaha caqabadaha yaryarna si gaar ah uga wada soconaa Nursing Association-ka runtii wayna noo qabtaan aad bay ugu mahadsan yihiin iyaga hay'adda UNFPA ee hawsha nala qabata aad baan ugu mahadcelinaynaa gobolka dhammaan bulshada u mahadcelinaysa community-ga wadanka degan baa sababta dadkan beneficiary-gu waa community-ga ka faa'iideystayaashu waxa halkan loo sameeyaa waa bulshada baa la rabaa in la badbaadiyo waxa la rabaa in inoo dhasho ilmo caafimaad qaba oo ay dhasho hooyo caafimaad qabta oo bari dhalaysa awlaad caafimaad qabta marka hooyada caafimaadka qabta waxay u baahan tahay intaanay dhalin in la ogaado nutrition-keeda maanta halka waxaan mahad u celinaynaa ururka Somaliland Nursing Association and Midwife oo wax badan gobolka u qabtay waxay noo qabteen oo gobolka u qabteen tababaro fara badan oo aad qiimo iyo qaaya u leh tababarada waxa ugu muhiimsanaa kuwa hooyada uurka leh iyo badbaadadeeda iyo ilmaha ay dhalayso tababarada waxa gobolka laga qabtay ilaa 3 jeer ayaa laga qabtay waxaana qabtay Somaliland Nursing Association oo nooga yimi Hargeysa waxa kale oo ay qabteen tababaro ay ka mid yihiin training ilaahdo competency training for basic for operation theater shaqaalaha operation theater-ka ay u qabteen tababar ayagu soo diyaariyeen oo loo qabtay muddo ku siman 45 casho ayaa shaqaalaha tababarka ay galeen aad iyo aadna way uga faa'iideen waxa kale oo jira oo ay qabteen tababaro ku saabsan family planning kala korinta hooyada oo ay ka qabteen gobolka oo dhan gobolku wuxuu leeyahay 12 MCH dhakhtar weyn oo ku yaala Cergaabo oo ribaara isbitaalka baran kan dahar iyo ceelfay inta shaqaalaha ka tirsan oo dhan tababarada way ka qayb galeen si fiican waxay uga faa'iideeyeen dadweynaha waana aad bayna ugu faa'iideeyeen oo ay wax tar la ayay tababaro wax tar la ayay waxa kale oo ay MCH-da gobolka oo dhan iyo isbitaalada gobolka ay keenaan dawooyin la yiraahdo misabrasol oo wax ka tarta hooyada marka ay dhasho dhibaatooyinka ku yimaada ka hortageeda iyo dhiigbaxa marka hooyadu ay umusho runtii wax aad u muuqda ayay noo qabtay Nursing Association and Midwife ugu yaraan ilaa 70 shaqaale ah oo nursing iyo midwife ayay training siiyeen dee wax badan oo kabidana ayay noo noqotay inay kor u qaadaan capacity building-ka shaqaalaha
aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida fiican ee ula shaqeeyaan gobolka iyo shaqaalaha nursing and midwife-ka iyagu mas'uulka ka yihiin ururka nursing association and midwife runtii ururkaasu waa ururka kaliya ee aan oran karo waxay sameeyeen waxa la yiraahdo capacity building oo ah nursing-ka iyo mulaha waa marjaca qura loo laaban karo oo macnaha laga sugayo ama wax laga sugayo in dadka horumarinta waxtarka shaqaalaha caafimaadka si ay shaqaaluhu tayadoodu u noqoto tayo sare ummadda waxay gaarsiinayaan ay u noqoto runtii wax ummad la jaan qaadi karaya systemka hadda socda new systemka runtii mahad weynay mudan yihiin ururkaasu wax badan bay noo qabteen gobolka hadday tahay iyo tuulooyinka masaajada kale iyo hadday tahay shaqaalaha gobolkaba waxaanay mudan yihiin runtii in la ammaano oo loo soo jeediyo mahadar bay mudan yihiin waxaa kaloo iyana la halmaami karin had iyo jeer ka warqabka tareeninada marka ay soo baxaan si ay gobolka uga howlgalaan oo u yimaadaan iyagoo had iyo jeer u sida tababar iyo dawooyin wixii ay heli karaan waxaan halkan ka cadaynaynaa runtii in ururkaas yahay nursing association and midwife inuu yahay backbone-ka wasaaradda caafimaadka shaqaalaheedu khaasatan nursing-ka iyo muluhu lagu tiirsan yahay ee had iyo jeer dhisa shaqaalaha waxtar shaqaale si usoo baxo Jamaale Cali Maxamuud waxaana ka mid ahay shaqaalaha cusbitaalka Hargabo run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ururka nursing-ka iyo mulisooyinka ee Somaliland loo yaqaano Somaliland Nursing and Midwife Association anigu shakhsiyan waxaan ka mid ahaa shaqaalihii ay qabteen muddo wiiga training ku saabsan maxay tahay mental speciality mental health gap program la yiraahdo ay noo qabteen aan ka faa'iideysanay muddo 7 casha kaasoo ujeedadiisu ahayd meesha aan lahayn dhakhtar psychiatriga inaanu anagu service-kii gaarsiino waxa kaloo noo dheeraa inta hulul iyo garada program drugski abaarihii ah oo ay incentive-na bixinayeen dawooyinna ay bixiyeen intii abaaraha oo ay fulinayeen ururka nursing association-ku aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waanuna u mahad celinaynaa shaqo fiican iyo halbowlay gobolka u yihiin iyo caafimaadkaba waxaanu leenahay waanu idin hambalyeynaa shaqada wanaagsan aad qabataan waanu idinku garab taaganahay soo kordhiya aad iyo aadna waanu idinku mahad celinaynaa shaqada fiican aad haysaan haddaan nahay midwife-kii iyo nursing-kii oo isku jira oo ururkoodii maanta aan halkan iskugu nimi waxaan halkan ku sheegayaa soo bandhigayaa waxyaabihii aanu qabanay intii aanu jirnay ama la doortay groupkan dambe ee imka shaqeynaya waxyaabahan qabanay waxa kamid ahaa inaanu sameynay wacyigelin aanu ka sameynay centerska xaafadaha anagoo ka wacyigelinay qaabka la isku gudbiyay HIV-ga oo isku yeernay hooyooyinka iyo dadka dhalinyarta ah ee xaafada jooga iyo anagoo ka sameynay wacyigelin GBV-ga iyo ka sameynay FGM-ka oo waliba sameynay xagga iskuulaadka HIV/AIDS-ka oo ka sameynay wacyigelinta xagga iskuulaadka oo dhalinyarta maadaama imka dhalinyarta iyo dadkaas aanay ahayn dadka sida fiican u fahansan aanu xagga ka bilownay kale waxa jirta oo aanu iyagana aanu ku soo xidhnay ururkan aanu keenay difcado badan oo nursing iyo midwife sanadahan u dambeeyay ka baxay gobolka Saaxil siib ahaan degmada Berbera kamid ahaayeen 2 difcadood oo ka baxay jaamacadda Golis kuwaas oo baxay 2 sano u dambeeyay iyo 2 difcadood oo iyaguna ka baxay adna university oo branch halkan ka furatay imka muddo 4 sano ay shaqeynayeen waa groupka yagan oo waa groupkii u horeeyay groupna waa groupka imka baxaya oo diyaara hadii la hayro dhawaan iyaguna imtixaanka galaya labada groupba afarta group oo ku soo xidhnay nursing association-kii imka waana kamid waana ku jiraan waana waliba xubnaha ugu firfircoon ee rajaynayno inay wax fiican ku soo kordhiyaan munaasabada maanta aan iskugu nimi waxaan la xidhiidhaa amba aan la socotaa munaasabadii nursing association uu qaban jiray sanadkiiba halma inaga waan alxamdulillah waa markii koobaad ee joogna ay dhacdo waxaana ku beegan tahay 5 May sahaate awanaga waxay ka dhici jirtay caasimada oo quriya imka waxaan la sameeyay sidii ay dhimay inta koobaan laga sameeyo goban la isku soo wada deyn jiray tii oo kale weeyaan imka teenan waxay la socotaa tii 5 May inagoo mateeyna gobankii
nursing association-kii gobolka saaxil waxaan aad ugu mahad celinayaa nursing association-ka Hargeysa oo inoo sameeyay tababaro badan bay ina siiyeen sida GBV-ga family brain-ka taagna badan baan ayna siiyay runtii inkastoo ardayda cusbada soo baxday aanay helin laakiin ardaydii hore in inta anaga nagu sinnayd waanu helnay waanu ka qayb qaadanay wax badan oo ka faa'iidnay waxaan joognaa qaybtii delivery-ga waxaan si toos ah u taabanayna aan bayni tusayaa aagti waxyaabaha inoo keeneen nursing association waxa ka mid ah shirib jaarka si aad u xasuusato saacadaha shaqada la qabanayo oo looga eegto sida marka dhaqmada kadib ay dhacdo dhiig buxu wixii qofka laawaya xaalad ama jismo ku gaaro si uu xasuusto maskaxdiisa markuu eego ay ugu soo dhacdo aad baan ugu mahadsan yihiin waa xasuusinta qofka markuu shaqaynayso wax xasuusto wixii uu qabanayay steps ku qaaday wuxuu ku manage gareynayay baan la qabto way tan oo kale markay foosho dheeraato wixii aan qabanayay si qofku nursing-ka ah ay midwife-ka ahi uu xasuusto shaqada uu qabanayay intaan uu dhakhtar u yeedhin isagoo ku sii manage gareeyo saddexaad waxa weeyaan nayuba station-ki weeyaan waa baby-ga markii uu dhasho waxyaabihii aad u qabanaysay iyo sida aad u manage garanaysay inaad ku xasuusato steps-kii ama procedure-kii la raacayay waxaan leenahay intan wayna soo gaadhay waanan ku faa'iidnay goobaha aan gaadhin ama meelaha aan gaadhin waxaan idin hagajeenaynaa oo codsanaynaa in la soo gaarsiiyo waxa kale la sameeyaa caafimaadka in updating baan la sameeyaa inta uu isbedelaya wixii inta ka dambeysay soo baxayna iyaga in la soo gaarsiiyo si aan loo kala hadhin oo la jaan qaadno waxyaabaha cusub ee imika socda waxa kale iyaga codsanaynaa inta ay qaadatay ee soo gaadhay mooyaane ardayda freshka ah ee imika soo baxday 4 sano 2 sano u dambeeyay in iyagana tababarada la siiyo si iyaguna ay u ogaadaan waxyaabaha ay qabanayaan amba aqoon fiican ugu yeeshaan oo updating u xasuustaan wixii ay soo dhigteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Basho teejihiin oo aanay ugu filnayn sida fiibjaka oo kale meelo badan baanu gaadhin waxa kale aad in ka codsanaynaa misbirsooshi oo aanu qabno baahi weyn oo inta wada siiseen laakiin inta loo baahna xadiga loo baahna waxa ka badan inta hooyo ee umagaysa inta hooyo dhiig baxaysa marka waxaan jeclaan lahaa inaad ka soo badisaan si ay wax badan inoogu qabato oo meelaha aan gaadhin ay u gaadho waxa kale aan u baahanahay taweegniska xoog baan iyo xoog oo saaga dhon jeerana waan sheegay ku soo celinteedu waxay muujinaysaa inaan u baahanahay tababar saayida programkan simoga ay fuliyeen Somaliland National Association-ku runtii wuxuu ahaa program aad iyo aad u wanaagsan ay iska kaashanayeen hay'adda UNFPA iyo Somaliland National Association lagana fuliyay isbitaalka guud ee Boorama waxaan oran karaa wuxuu ahaa program aad iyo aad u wanaagsan ay fuliyeenna dad gacan aamin lihi ay fuliyeen oo wax lagu aamini karo ay ahaayeen waana program ay isbitaalku muddadii uu ka socday January 2017 ilaa iyo December 2017 program aad iyo aad loogu diirsaday aan oran karo wuxuu koobay oo mataqaanaa dhiirigeliyay in ay hooyooyin badan iyo ubad badani ilaahay mataqaanaa ilaahay badbaadiyay laakiin sabab uu programkaasi oo ahaa sababtoo ah wuxuu ahaa program ku salaysan badbaadada hooyada markaan eego ka faa'iideysan programku wuxuu dhiirigelinayay ama uu taageerayay shaqaalaha ka shaqeeya waarka dumarka halkaas waarka dumarka markaan leeyahay waarka dhalmada kuwaasoo ka dhigay shaqaale joogto ah 24 saacadood heegana dad aqoon iyo xirfad iskugu yimaadeen oo soo jiitay ayna sabab badan u noqotay inay hooyooyin badan ilaahay iyaga awgood ku badbaadiyo isagoo shaqaalahaasi mishaarka ay qaataan ee gudnaha ee laga siiyo waxa kaloo programku waxtar weyn u yeeshay qaybta mataqaanaa qalliinka halkaasoo muddo tababar lagu siiyey tababarkaasina waxaa u dheeraayoo kale in iyaga laftooda laga la dhiirigeliyo oo ka helaan programka dhiirigelin gudno bishii la siiyo waxaa kaloo programku daboolay qaybta carruurta yaryar mataqaanaa marka iyaga oo sinqaysan oo mataqaanaa dhibaataysan dhasha ayaa waxaa loo sameeyey waardkaasna waxay ku sameeyeen
extension ama fidin ballaadhin ay la ballaadhiyey si mataqaanaa ay caruur badan ama tirada iminka markaa jirta tiro ka badan loogu daryeeli karo taasina waxay keentay in ay ubadkii awal iyagoo silicsan intay iska dhashaan dee sida uu ilaahay yidhahdo la eegayay inay iminka isbitaalka dhexdiisa daryeel mataqaanaa sugan oo munaasiba ay ku helayaan runtii waxaan odhan karaa wuxuu ahaa program aad iyo aada u wanaagsan waxaan jecelnahay dadkii iska kaashaday ay ahaa UNFPA-da Somaliland Nursing Association iyo wasaaradda caafimaadka dhammaan inay programkii la dardargeliyo lagu soo celiyo isbitaalka si wanaagsan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigoo ah Khadra Cabdi Cilmi ahna shaqaalaha ka qayb gala tiyaatarka Boorma Regional Hospital ahna shaqaalihii qaatay trainingkii berigii sanadkii hore horta trainingkaas wuxuu ahaa mid aad iyo aad u fiican aadna noo anfacay wax aad u fara weyn naga bedelay annagoo shaqaalihii markii hore kasii shaqayn jirnay shaqadiisii aan jirnay haddana isbedel weyn haddii ay noqoto xagga sterilizationada bukaanada oo kale aduu wuxuu ahaa mid aad iyo aad isbedel weyn u yeeshay tiyaatarka weli haddana lagu sii dhaqmo isbedelkuna aad iyo aad u shaqeeyo iminka marka trainingkaasi mid aad noo anfacay buu ahaa iminkana weli haddii xataa training kale haddii lanoo keenay daftarkeyga wuxuunku naga anfici wax kalunku noo qaban insha allah markaasi aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa tiimkii qabanqaabiyey trainingkaasi ee ahaa Nursing Association and Midwifery waxaan u baahanay kule meesha hadday tiyaatar tahay meel isbedelku imanayo mar walba waxyaabihii sterilada iyo waxyaabihii la isticmaalayay iyo instrumenadii wixii hadduu mar walba isbedeliyo waxaankaasi ku imanayo iyo tekniigyadii ay soo kordhayaan kulba tekniig cusub imanayo waxaan loo baahan yahay in mar kasta ama sanad kasta lanoo trainingka iyo waxaa lanoo sameeyo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inta barnaamijkan waa barnaamij aad u wanaagsan oo dumarka fisalada qaba wax lagu caawinayay qalliin loogu sameeyay counseling loogu sameeyay dumarkaasina waxay ka yimaadeen wadamada meelaha regionska af Soomaaliga laga hadlo dhan laga soo bilaabo Wajeer waa Soomaaliya waa Somaliland Ethiopia iyo Djibouti inta way ka yimaadeen laba jeer baan sanadka qabanay mid wuxuu ahaa dhamaadkii sanadkii hore sanadka dhexdiisana bilowgiisii mid baa la qabtay tirada markaa la sugeeyo bukaanka la daweeyo waxa gaarayaan 370 iyo 170 iyo 44 patient arrinkaana waxa qayb badan ka qaatay muxuu ahaa ururka SNL iyagoo muxuu ahaa counseling sameeyay bukaanka waraystay la taliyay dhiirigeliyay macnaha ula sheegay inta badan inuu mustaqbal fiican yeelanayo qayb qaatay macnaha labada jeer la qabtayba iyo wasaaradda caafimaadka iyaduna qayb badan oo libaax ka qaadatay waan baadsantiray barnaamijkani wuxuu caawiyaa dhammaan shaqaalaha caafimaadka gaar ahaan nurseska iyo umulisooyinka Somaliland waxaa jira dad in ka badan 20 sano aan helin update ama xirfadooda aan kor loo qaadin tusaale ahaan waxaa jira umulisooyin 20 sano ka hor iskuulada ka baxay oo wax bartay una baahan in cilmiyada cusba ee adduumaadka ka soo baxaya lagu tababaro oo xirfadooda kor loo qaado marka waxaan isku daynaa umulisooyinkaas ama nurseskaas gobolada jooga inaanu gobol walba sidiisa u booqano isla markaana aan ku tababarno qayb walba ay ka shaqeynayaanba waarku way kala duwan yihiin qaybaha ka shaqeynayaan way kala duwan yihiin waar walba inta ka shaqeynaysa waxa ay gacanta ku hayaan ayaa lagu tababaraa ilaa hadda tirada aanu gaarnay waxa lagu qiyaasaa 1515 qof oo lagu tababarnay barnaamijkan continuous professional development ama barnaamijkan joogtada ah xirfadda shaqaalaha caafimaadka kor loogu qaadayo tirada aanu gaarnay waxa weeyaan 1515 qof kasta oo lagu tababaro barnaamijkan xirfadda kor loogu qaaday shaqaalaha caafimaadka SLNM ama Somaliland Nursing and Midwifery Association waxay u haysaa personal file uu leeyahay oo xafiiska u yaala file-ku waa kaas qof kastaaba wuxuu leeyahay file gooniya oo lagu haya xafiiska filekiisa waxa ku guda jira warqad lagu qorayo
magaciisa wuxuu bartay sanadku ka baxay informationkiisa oo dhan qofka waxa lagu qorayaa qualificationkiisa nurse midwife mid uu yahay waxa lagu qorayaa nooca seminaarka ama workshopka uu qaatay ee lagu tababaray waxa kale oo lagu qorayaa sanadka uu qaatay warqadaas waxa uu oolaysaa markaas xafiiskii uu oolaysaa warqadaas waxa kale oo ku jira workshopkii uu qaatay halkii uu ku galay saacadihii inta saacadood la tababaray iyo saxeexa qofkii tababaray oo u saxeexaya inuu isaguna maxaa dhadayay uu diiwaanka xafiiska sida ku galo marka faylkaas qof waliba yeelanaya buugga waxa la yiraahdaa continuous professional development record book baa la yiraahdaa kii hore waxa lagu kaydinayay xogta qofka tababarku qaatay xafiiskuuna oo leeyay laakiin kan qofku isaga qaadanaya gacanta ku haysanaya wuxuu ka turjumayaa markaasi tababarku qaatay waqtigu qaatay dheedkii baa lagu qorayaa meeshu ku qaatay marka waxay cadeynaysaa qofkaasi buugga uu qacantiisa ku haystaa inay diiwaanka inta tababar ee Somaliland Nursing and Midwifery Association uu ka qaatay buuggaasi marka uu buuxsamo tiradiisu aad bay u badan tahay markuu buuxsamo qofku wuxuu xafiiska dib ugu soo celinayaa si hadhow toole loogu bedelo oo kan mid la mid ah loo siiyo marka barnaamijkeegu qaabkaas uu shaqeynaya dhammaan tababarada xafiiska uu yaalo qofka loo qoray iyo inta halkan ku qoran waan isla haadaan sanadkiibana hal mar ayaa loo qiimeynaya insha Allah